bismillaahirraxmaanirraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bin-aadanka allah wuxuu siiyey awoodo kala duwan iyo cilmi kala duwan. haddii dadka oo dhan isku awood iyo isku cilmi uu allah ka dhigi lahaa adduunyadaba micno ma lahaateen. waa xigmad allah agtiisa inooga timid kala duwanaanshaha bin-aadanka. barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 10 nin ee adduunka ugu xooga weyn, ha noqoto kuwa awoodda u leh qaadidda waxyaabaha culayska, kuwa jirkooda dhisa, legdinta gacmaha iyo legdinta kale. haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale oo aan idiin soo wadno. kaalinta 10aad waxaa ku jira Ulubayaan Bayanbajaaf. wuxuu u dhashay Mongolia, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 1 inji, culayskiisu waa 152 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaarta legdanta ee wadamada indhayarta laga ciyaaro. wuxuu ciyaaray 100 ciyaar iyo in ka badan. inta badan wuxuu ku raayay dahab. ciyaartan legdanta ee adduunka oo dhan loo qabtana 2 jeer ayuu guulaystay. wadamada uu ka badiyey waxaa ka mid ah Japan, Mongolia, Thailand, US, Italia iyo Germany. kaalinta 9aad waxaa ku jira Hafbor Julius Johnson. wuxuu u dhashay wadanka Iceland, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 9 inji, culayskiisu waa 180 kilogram. waa jilaa filimada Hollywoodka. wuxuu ciyaari jiray kubadda basketballka. 31 January 2015 wuxuu ka qayb galay ciyaar Viking competition oo lagu qabtay Norway, wuxuuna qaaday 650 kilogram wuuna guulaystay. kaalinta 8aad waxaa ku jira Mark Henry. wuxuu u dhashay America, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 4 inji, culayskiisuna waa 187 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaarta wrestlingka iyo ciyaarta culayska la qaado. dhowr jeer ayuu ku guulaystay culays la qaado, waxaana ugu weynaa marka uu ku guulaystay 456 kilogram. kaalinta 7aad waxaa ku jira Dmitro Khaladshi. wuxuu u dhashay Ukraine, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 1 inji, culayskiisu waa 126 kilogram. waa nin ciyaaryahan ah, wuxuuna ciyaaraha kala duwan ee uu sameeyey ku guulaystay 63 jeer. kaalinta 6aad waxaa ku jira Ryan Kennedy. wuxuu u dhashay America, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 3 inji, culayskiisu waa 154 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaaraha culayska la qaado. ciyaaro badan ayuu ku guulaystay. culayskii ugu badnaa ee uu ku guulaystana waxay ahayd 487 kilogram. kaalinta 5aad waxaa ku jira Denis Zeblenkov. wuxuu u dhashay Ukraine, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 1 inji, culayskiisuna waa 139 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaarta xoogga gacanta ee dhulka laisdhigo, wuxuuna ku jiraa dadka gacmahooda xooga badan, isagoo dhowr jeer ku guulaystay ciyaarta gacmaha. kaalinta 4aad waxaa ku jira Mariusz Pudzianowski. wuxuu u dhashay Poland, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 1 inji, culayskiisu waa 140 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaaraha waxyaabaha xoogga laysugu faano iyo culayska la qaado. tan iyo intuu ciyaarayay culayskii ugu badnaa ee uu ku guulaystay waxay ahayd 415 kilogram. kaalinta 3aad waxaa ku jira Eddie Hall. wuxuu u dhashay Ingiriiska, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 3 inji, culayskiisu waa 182 kilogram. wuxuu ciyaaraa ciyaaraha waxyaabaha culayska la qaado, waana ninka keliya ee ku guulaystay qaadista 500 kilogram gudaha wadanka Ingiriiska. kaalinta 2aad waxaa ku jira Zydrunas Zivikas. wuxuu u dhashay Brazil, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 3 inji, culayskiisu waa 180 kilogram. wuxuuna ku jiraa tartamayaasha culayska qaado kuwooda ugu xooga badatan iyo intuu ciyaarayay. culayskii ugu weynaa ee qaaday waxay ahayd 524 kilogram. kaalinta 1aad waxaa ku jira Brian Shaw. wuxuu u dhashay America, dhirirkiisu waa 6 fiid iyo 8 inji, culayskiisuna waa 190 kilogram. 2011 laga soo bilaabo ilaa iyo iminka waa ninka ugu xoog badan adduunka qaadista tartamada lagu tartamo qaadista culayska. waxaad ku mahadsan tahay daawashada fideogan. fadlan haddii aad ku qanacday daawashada fideogan, sheer garey si dad kale ay uga faa'iidaystaan. waad mahadsantihiin.